bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa xanta wararka haddii aad ku cusub tahay ku biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran halkan si aad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyin aanu falanqeyn iyo faaqidaad ku sameyno waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doona hadduu alaweyn raalli ka noqdo waxaa idiin soo gudbin doonaa si weyn ayaa loo hadalhayaa nin Soomaali ah oo ku go'doonsan god kuwa dahabka laga goda ah oo ku dhacay gudaha Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa dhacdadan oo si weyn loo hadalhayo iyo Soomaali badan oo codsiyo u diray dawladda Carbeed waxaan idiin soo gudbin doonaa gurmadka soo saaridda ninkan oo muddo dhowr iyo 20 saacadood ku xayran godkaasi dahabka laga godayay sidee ay wax u dhaceen barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alaweyn raalli ka noqdo mid ka mid ah dhacdooyinka ugu hadalhaynta badan ee taagan iminka sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono hadduu alaweyn raalli ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alaweyn raalli ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada asxaabta sida tooska ah inuu xiranow hadduu alaweyne raalli ka noqdan aad ku daawa doontaan barnaamijkan waxaa la magacaabay maareeyaha hay'adda tayadhowrka oo ka mid ah xubnihii CBBdii farmaajo magacaabistiisii oo uu ku saxiixnaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo geliyay barta xafiiska ra'iisul wasaaraha kadibna waa laga saaray haddaba maxay ka dhigan tahay arrintan barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa haddii alaweyn raalli ka noqdo qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan soo dhawaada daawadayaal haddii aad ku cusub tahay nagu biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran halkan si aad u hesho wararka warbixinadana xanta absaar sidoo kalena la garay daawade adigoo gambalka furanaya nin Soomaali ah ayaa ilaa iyo markaasi dhowr iyo 20 daqiiqo waxa uu ku xayiran yahay god laga qodo dahabka oo uu ku dhacay nin dhalinyaro ah ayaa tan iyo xalay waxa uu ku go'doonsan yahay god uu ku dhacay oo nooca dahabka laga qodo ah waa habeenkii labaad ka uu ku yaala deegaanka Milxo ee buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaag ninka gobolka godka ku dhacay waxa uu ka mid ka ahaa dadka godadka dahabka ka shaqeeya waxa lagu magacaabaa Maxamed Saciid Cali dadka deegaanka ayaa wada dadaal iskugu dayayaan inay markaasi ku badbaadiyaan sida warar aanu helnay ay sheegayaan ilaa iyo hadda ma jirto gurmad dhanka dawladda ah oo gaaray halkaasi sidee ay wax u dhaceen haddaba Maxamed Daahir Jaamac oo jooga Milgo ayaa sheegay in uu mid ka mid ah godadka uu ku dumay ninkaasi dhalinyarada ah xilli ay raggii kale ka tageen goobta 12 habeenimo iyo meelahaas ayay ahayd ilaa xilligaasi cidi ninka ku duntay ayaa ilaa xilligan la qodayaa ninka nolol iyo geeri laguma oga mana u muuqdo dadka ku mashquulsan badbaadintiisa Maxamed waxa uu yiri isagii ninka godka ku jira mag aragno oo ciid baa dul martay ilaa 20 mitir buu awdmay godkiiba wax yar baa ka soo haray waa duugmay wuxuu intaa ku daray in rag gaaraya 600 oo nin ay ku howlan yihiin qodista godka hawsha waxaa loo adeegsanayaa gaadiidka wiishashka ah Maxamed wuxuu tilmaamay inta badan ciidii ku asmatay godku inay ka qaadeen isla markaana lagu dhow yahay inta hoose ee uu markaasi aninka ku jiro wuxuu xusay in godka dahabka uu hoos u markaasi u qodan yahay qiyaastii 40 mitir ay deegaankaasi ku yaalaan muddo 6 ilaa 7 sano ah waa godad dadka gudaha u galaya ay xargo adeegsadaan ama jaranjarooyin mararka qaarna wiishash ayaa dadka shaqalaha ah lagu geeyaa salka hoose ilaahay baa badbaadahayo laakiin ninka ciidaas inta markaasi taraleek awdan anigoo nolol lagu tagayo u maleen maayo ayuu yiri Maxamed wuxuu sheegay in dadka deegaanku aysan u kala harin hawsha badbaadada iyadoo lagu dadaalayo nolol iyo geeri kii lagu tagaba in ninkaasi godka laga soo saaro Maxamed waxa uu xusay in shilalka ka dhaca godadku ay ka badan yihiin deegaanku
wuxuu xaqiijiyey dad ku dhow 10 oo Soomaali ah iyo Oromo isugu jira oo halkaasi ka shaqeeya inay horay ugu dhinteen godad ku dumay. Waxaa jira dhacdooyin hore oo dad godadka ku markaasi dahabka ku dhacay ay suuragali weysay in la soo badbaadiyo, taasoo sababtay in markii dambe lagu aaso maadaama aysan deegaanadaasi lahayn adeegyada iyo agabka sahla gurmadka degdega ah. Waxaa siyaabo badan la isu weydiiyey halkan dahabka laga qodayo ee buurahaasi Calmadow ee gobolkaasi Sanaag. Ogaanshuhu uu maamulku og yahay arrintan iyo in markaasi xubno macaash doon ah ay markaasi tallaabadan qaadayaan. Dad badan ayaa arrintan ay soo xasuusisay dhacdo kol hore dhacday oo ahayd in markaasi wiil yar uu ku dhacay ceel ama god dalkaasi Morocco, badbaadadiisana isugu tagtay dowladdii oo dhan, taasoo keentay in dadka qaarkii ay codsiyo markaasi la dhaceen dalkaasi Morocco. Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya waxa uu agaasimo u magacaabay hay'ad muran uu ka taagnaa. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray wareegto lagu magacaabay agaasimaha cusub ee hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed sida lagu baahiyey bogga xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray heer madaxweyne lambar 44 oo uu ku magacaabay maareeyaha cusub ee hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed, wuxuuna u magacaabay Cali Yaasiin Gurbe. Madaxweynuhu ayaa xilkan ka qaaday maareeyihii hore ee hay'adda Aadan Xasan Bare. Magacaabidda Cali Yaasiin Gurbe loo magacaabay inuu noqdo maareeyaha cusub ee hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed ayaa dhaqan gelaysa. Xilka maareeyaha hay'addan ayaa muran ka taagnaa xukuumaddii Rooble, iyadoo xilka qaadis uu sameeyey wasiirka ganacsiga laga markaasi hor yimid, waxaana laga joojiyey heshiis lala galay shirkad tayadhowr oo markaasi fadeexadi ka dhalatay. Haddaba ninkan wareegtadiisu maanta ay dhaqan galayso ee madaxweynuhu magacaabay waxaa la leeyahay isla madaxweynuhu ayuu aflagaado markaasi ku sameyn jiray barihiisa bulshada. Waxaan maqli jiray bartaada bulshadu waxay markaasi ka caawisaa ama kugu noqotaa dhirbaaxo xilliga aad shaqadoonka tahay ama ay markaasi shaqooyinka aad dayanayso, taasi oo keeni karta in waxyeello ay ka dhalato oo dib loo raaco. Ninka intaa ayaa haysata barihiisa bulshada ayaa la sheegayaa in ninkan uu ku ahaa dadka loo yaqaano CBB-da ee farmaajo iyo xubnihiisii lagu sheego, isaga oo taageero u ahaa markaasi maamulkii hore. Cali Yaasiin Gurbe, maareeyaha cusub ee hay'adda tayadhowrka, waxa uu ka mid ahaa taageerayaasha siyaasaddii ku dhisneed rabshadaha, nacaybka iyo awood ku muquuninta dadka ka aragtida duwan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku hogaamin jiray Soomaaliya intii u dhaxaysay February 2017 ilaa May 2022 waa sida ay ku dhaliilayaan xubnaha iyagu markaasi dowladda ka tirsan iyo xubnaha iminka iyagu barta bulshada ka taageera ee iyagu booskii hore ee mas'uulkan iminka la magacaabay uu jooga sida ay markaasi ku eedeynayaan. Cali waxa uu bartiisa Facebook si joogto ah ugu aflagaadeyn jiray madaxda xisbiyada iyo guud ahaan siyaasiyiinta ka soo horjeeday siyaasadda farmaajo. Madaxda iyo siyaasiyiinta uu sida gaarka u weerari jiray waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo dhammaantood diidanaa muddo kordhintii Abriil 2021 iyo tallaabooyinka xukuumaddu qaaday sababay rabshadaha iyo markaasi iskorimaadyada. Qoraalada laga soo qaaday waxaa ka mid ah ama maxay ka dhigan tahay haddaba magacaabistiisu aragtida Soomaaliya heshiisa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay inay ku dhisan tahay in dhismo dowladda Soomaaliya uu qof walba yahay maanta ayaa qabta inuusan jirin qof la tuuro ama laga tago haddii uusan cadow ku ahayn jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Qoraalo dhowr ayaa laga soo qaaday oo uu ka mid tahay in uu markaasi kaga hadlay arrimaha ku gadaaman kiisaskiisa. Waxa uu sidoo kale aad u weeraray Mahad Maxamed Salaad, taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, oo markaasi dhowr qoraalood uu ka sameeyay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kulamo uu la yeelanayay madaxda maamul goboleedyada ama xubnaha markaasi Qorqor iyo tiimka Abdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkeena, waxaan idinkaga tagnaa sida iyo nabadiina amaan Allah.